waxaan maanta halkan na soo fadhiisiyey inaan jawaab siino ururka OLF oo maglaja bixiyey oo leh magaalada Diradhabe taariikhdeeda iyo hantideeda iyo dhulkeegaba waa dhul Oromo hantida taalana waa hanti Oromo sidaa daraadeed annaga hana nagu wareejiyo iyay warqadda ay qoreen maglajaha ay u tabiyeen baarlamaanka Itoobiya annagu haddaan nahay ururka midnimada dimuqraadiyadda iyo xurriyadda arrintaas si adag baan uga soo horjeednaa magaalada Diradhabe ma gali karto wax la yiraahdo gorgortan magaalada Diradhabe waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo la wada garanay inay tahay magaalo Soomaaliyeed sidaas daraadeed maadaama ay magaalo Soomaaliyeed ay tahay taariikhdeeduna ay sheegayso waxa la wada og yahay treenka iyo yahayd wixii magaaladan dhisay treenku intuunan soo degina dad baa deganaa meeshan dadka deganaana ciisiyo gurguray ahaayeen ciisiyo gurgura ahaadan ani awoogay baa kamid ahaa nin kastaba uu iska hadli karaa aabayn halkan uu ku dhashay waxa weeye kolkaa waxaan leenahay oo si cad u leenahay magaaladan gacmahayagan ku dhisnay annaga ma aragtay heshiiskii Faransiiska aan la galnay la dhisnay magaaladan waxa ku noolaan jiray taariikhdeeda haddaan dib u soo qaadano Arab baa nala dhistay oo joogtay dabadeed Talyaaniga soo galay wadanka Talyaanigina intiisuu ka qayb qaatay waxa oo dhan markii la dhisay ilaa 1960kii Oromada la sheegayo maxay aqal ku lahayd magaaladan oo halkay ka deganayd meelay ka deganayd ma jiro haddii been iyo balaayo la isku sheegi been iyo balaayo haddii la isku sheegi waan lahayn way odhanayaan laakiin waxaan garanaynaa masagaajaha Diradhabe waa lagu laami karaa 10 guri oo Oromo ah la heli maayo oo meeshan annaga la odhanay hadday noqotay baadiyaha ku hareeraysanna ciisiyo gurguru aha waxa weeye magaaladan annaga faraayag ku dhisnay midna ma ogolaanayno waxaan ognahay nidaamkii hore ee Tigreega ahaa inuu isagu si uu u kabsado Oromada uu yiri magaaladan wax niga siin annagana uu nagu qasbo yiri magaalada nila yeeshaan kolka wax Oromo oo murano oo jiray oo weyn may awlin waan ka diidnay waad wada ogtihiin aniga rag badan waa keenana xidhxidhay oo Tigreeguna xidhxidhay wuxuuna nagu xidhay waxaan niri ma ogolaanayno maqale sidaad u leedahay nagu Diradhabe u leenahay waxa weeye taariikhda Diradhabe mid la qarin kara ma mid ma aragtay been laga sheegi karana ma imika sanadii barka hor sanad buuxda dagaal baa Diradhabe nagu socday annaga Oromo onaag iyo ma aragtay dadkii taageersanaa dagaal baa min Jalanqo ilaa meel kasta naga soo qaaday oo sanad buu socday magaalada sina nooga saaro way dhici kari weyday dhalinyarteena oo ah geesiyow iyo arintaas dibrada waasay waa laga saari kari waayay Soomaali magaaladii taas sidaa bay ahayd maantana arintii si kale u rogeen markay tii socon weyday dhulboob baa la sameeyaa dhulboob aqal boob balaqladii Xaaji Ismaaciil maanta arka heed wada garanaysiin xoog baa lagu haystaa dawlad ka ridaysa ma jirto si kastoo la sameeyo wax ka rida xitaa dacwad kastay sameeyeen ma jiro imisa aqal boob sidaas jirta haddana wixii aqaladii way dhaafto dhulboob bay noqotay qoladii ka ah real estate ka sameynaysa aqaladii ay dhistay xoog baa la qaato lagu galaa dhulkii kale inay dhistaa haydna waaba la dhistayba oo xoog baba lagu wataa waxaasi dhul laguma qaadan karo xoogga sidaas hawaawiga hal iska daayo
hawaawiga la iska daayo war meeshan haddii la doonayo nabad dadku waa ku wada noolaadaan onaag waa fidnad wadayaal iyagaa dagaal ka wada dhulboobkan iyagaa dabada ka riixaya waxaanoo dhan iyagaa wada sheekadan kayro iyo balaayo lagu leeyahay iyagaa dabada ka wada xilligaa waxaa weeyaan annagu waxaan leenahay raggaa waan u digaynaa waxaa wanaagsan ummaduhu inay nabad ku wada noolaadaan magaalada diradhabana aad nabad ku noolaataan waxaa weeye beritoolana waa laysku baahan karaa annaga oramo badan baana dhex degan waan ognahoo nabad bay ku nool yihiin dhulkayaga iyo waddannada deriskoo waddana soomaaliyeed ah waxaa weeye caqligu ha shaqeeyo waar joojiya dhulboobkan iyo xooggan baan ku soconnaada war nabadan ka wada shaqayno war dadka han walaalayno war nabaddu ha weynaato annagu waxaan leenahay nabadda ha laga shaqeeyo nabaddu ha weynaato say nabaddu ku weynaanna waxaa weeyaan cunsurinimadan iyo boobkan iyo indhala'aantan aad ku socotaan joojiya midda kale waxaan la hadli dowlad deegaanka soomaalida dee dowlad deegaanka soomaalida xuduuddeedii way ilaashan laadahay xuduuddeedii way ilaashan laadahay ilaa maanta dhulkii iyadu way xukumaysay ilaashan laadahay oo maalin kasti la boobiyo aqla laga dhisay dee waxaan leenahay dee ummadda dhabarkeed ka jabisayna ka jooga war xuduudda iyo dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada labadaba xil baa niga saaran xilkaa niga saaran maad aragtay in aad wax ka qabataan baa loo baahan yahay midda kale xil waxaa niga saaran inaad ka hadashaan arrintan ay soo dhigtay arrintan ay maglajaha ku soo dhigtay maad aragtay oromadu ay leedahay diradhaba annagaa leh waxaan maqlayey ururka ONLF oo le waan xaqiijinaynaa waan maxay warahan waa maglajaa la yidhaha maglajaa laguma qoro reference number dee waxaa weeyaan maad aragtay arrimahan baan hagaag ugu bislaanne hadday niga dhab tahay soomaalinimadu cambaareeya waaba nii sheegaynaa waa war cad oo ka soo baxay ururkaa oo meedyahaagoo dhan la geliyey dadkana beenta ka daaya waan xaqiijinaynaa adiyo waxaan leenahay ururada kale soomaaliyeedna inay qaataan maad aragtay mas-uuliyaddoodii oo ay arrintaa meel cad ay iska taagaan baan doonaynaa dhammaan ururada soomaaliyeed maamulka soomaalidana isagana waxaan leenahay iyo ururkiisa iminka samaysmaya isaguna inuu arrintaa magaalada dirdhabe uu meel cad iska taago waxaan ognahay cadaytu cudhufiya garhmalo wixii ka dhacay oo ilaa maanta meel cad la iska taagin oo warqaddii loo baahnaa House of Federationka loo qorin oo ummaddaa si dhaba loogu dhiidhiin xilligaa waxaa weeyaan dirdhabana waatan way ku soo biirtay waxaan leenahay walaalayaal waan niga codsanaynaa gacanna waan nisiinaynaa meelaan ka soo wada jeesanno magaaladeenna innagoo meel ka soo wada jeedna han difaaciga galno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu